السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة وحنا halkan kugu soo gudbinaya shanta dal ee ugu cabista badan caleenta loo yaqaano xashiishka ama xashiishada uguna qiijinta badan. waa hubaal inaad la yaabi doonto markaan soo bandhigo dhowrka wadan ee ugu cabista badan xashiishka. shanta dal ee ugu xashiish cabka badan caalamka. caleenta loo yaqaano xashiishka ayaa inta badan mamnuuc ka ah dalalka caalamka si adagna loo kantaroolaa isticmaalka darooyinka noocan oo kale ah, balse waxaa jira tiro yar oo kamid ah dalalka oo aan sidaa u sii fogeyneynin. muuqaalkan waxaan kugu soo gudbinayaa hadduu alle idmo shanta dal ee ugu cabista badan xashiishka. kaalinta shanaad waxaa ku jira dalka Chile ee dhaca qaaradda Latin America. dadka isticmaala daroogada xashiishka ayaa lagu qiyaasaa 11.83% dadka ku nool wadanka Chile. kaalinta afraad ee liiska wadamada ugu cabista badan xashiishka waxaa galay dalka Canada, iyadoo lagu qiyaasay inay dhan yihiin dadka cab 12.7% bulshada ku nool dalkaas. Canada waxay ku jirtaa wadamada tirada yar ee xashiishada u fasaxay isticmaalo dhanka caafimaadka ah, waxayna xukuumaddu saartaa cadaadis xoog leh si loo xakameeyo marmarsiyaha lagu soo dejinayo xashiishada. kaalinta saddexaad wadanka Nigeria ayaa galay kaalinta saddexaad ee wadamada ugu xashiish cabka badan caalamka, halka uu kaalinta koobaad kaga jiro guud ahaan qaaradda Afrika. dadka caba xashiishka gudaha dalka Nigeria ayaa lagu qiyaasay inay kor u dhaafayaan 14% dadka ku nool dalka Nigeria. kaalinta labaad ayaa waxaa ku jira dalka Mareykanka, waxaana laga ogol yahay in xashiishka loo isticmaalo caafimaad ahaan 22 gobol oo ka tirsan dalka Mareykanka, halka in loo isticmaalo madadaalo ahaan laga ogol yahay oo kaliya 2 gobol ee kala ah Colorado iyo Washington, iyadoo lagu qiyaaso dadka isticmaala 16.2%. waxayna ku jirtaa kaalinta labaad ee dalalka ugu cabista badan ama ugu qiijinta badan caleenta xashiishada. kaalinta koobaad waxaa nasiib u yeelatay Iceland, inkastoo isticmaalka xashiishku yahay sharci ahaan mid mamnuuc ah. wadankaas ayaa haddana lagu tilmaamaa inay koobka u qaaday dalalka ugu xashiish cabka badan dunida, iyadoo lagu qiyaasay tirada dadka isticmaala daroogadan 8.3% dadka ku nool wadankaas.